waxaad ku soo dhawaatiin warbixintan waan ku eegi doono shalito weerarkii ay soo qaadeen qaar ka mid ah beesha Shan Caleemood. weerarka ayaa lagu soo qaaday magaalada Yaqbil Weyne hayeeshee waxa ay soo qaldeen xaruur beeraley ah oo qaarkood xoogsata ah waana aqoonin tabta dagaalka iyo sida dagaalka loo wajaho. waxa ay ku dhaceen kamiina difaacyo u yaalay meel ka fog halka lagu magacaabo Yaqbil Weyne ciidamada difaaca xaq u dirirka ee beesha Gaaljecel. halkaasi caruurtii ayaa qaarkood lagu dilay qaarna maxbuus ahaan ayaa loo qabtay ayagoo aan waxba gaarsiisneen qaarna dhaawac ahaan ayaa loo qabtay hase yeeshee waxaa lagu dabiibay isbitaalyo si gaar ah halkaasi ugu yaalo. lama dilin lama gubin lamana u jiidin meydkooda oo si sharaf leh ayaa loola dhaqmay oo islaamnimo iyo damiirka Soomaalida ay qayb weyn ka tahay oo dagaaladii 30 sano soo dhacay sidaasi ayuu ahaa. hayeeshee dhankooda haddana weerar kale ayay ku soo qaadeen deegaan lagu magacaabo Kabahereg kamiina kale iyo jidgalla loo dhigay awgeed ayay haddana ku soo daateen ciyaalkii. halkaasi waxa ay kaga ordeen laba gaari oo mid uu yahay gawaarida raaxada midna uu yahay homi kii raaxada dab ayaa la qabadsiiyay. eeda iyo khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay Shan Caleemood qaar ka mid ah oo dagaalkaasi ay dusha kaga tuureen beesha Irdha inay ka dambeysay qaar ka mid ah Hubeer iyo rag qurbaha jira. eeda ayay dusha isaga tuureen oo eedeen xoogan ayaa socotay yaa idin dirsaday weerar iyo waxyaalo kale ayaa xalito isweydiinayeen. nabadoonnada qaar ka mid ah ayaa war-saxaafadeed soo saaray kuna eedeeyay beesha Irdha inay dagaalkaas qaas u tahay oo ay ku jirin beelaha kaleeta iyo qaar ka mid ah beesha lagu magacaabo Hubeer oo ciyaalkaasi soo qalday isla markaasna soo marin habaabiyay uguna sheekiyay inay qabsan karaan dhul aysan xaq u lahayn oo weligood aysan degin. dhulkan waa dhulkii uu ku dagaalamay halgamaagii Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Sheekh Xasan Barsane afkana ciid u daray Talyaani oo watay hub casri ah iyo waxyaalo tiro badan. qaladkaasi ay soo qaldeen awgeed ay ciyaalkaasi ku baaba'een oo ay halkaasi ku xasuuqmeen. hayeeshee si sharaf leh ayaa loola dhaqmay maxaabiista iyo dhammaan qaarka dhaawac ah ee la dabiibaya ayaa isbitaalada ku jiro. arintaasi ayaa eedeyntaasi waxa qaatay dhammaan dadkii ka dambeeyay kuna howlanaa khilaaf iyo dagaal. beesha Gaaljecel ayaa hore u joojisay dagaalkii iyo rabshadii ay ka waday halkaasi qaadatayna in difaacu kaliya ay tahay heshiisna ka warsugaysay. tani waxay cadeynaysaa in raggan ay heshiisna rabin waxbana aysan rabin ayna dhulkooda ku duulayaan. hadda kadib dowladda Soomaaliya goobjoog ayay ka ahayd indhaha sheeda sare ayay ka daawanaysay wax halka ka dhacay wayna la socotay wax halkaasi ka dhacay gardarada baahsan ee ay soo qaadeen qaar ka mid ah Shan Caleemood oo qaar qurbaha jira ee dabada ka soo riixeen. waxay halaag iyo dhibaato u geysteen caruurta yaryar ee beeraleyda ah ee xoogsatada iska ah oo aan garanaynin dagaalka iyo sida loo galay intaba. qoryo tiro badan ayaa halkaasi loola wareegay. nabadoon ka mid ah nabadoonnadooda oo soo qoray qoraallo ayaa ku eedeeyay beesha Irdha dushana ka saaray in dagaalka ay tahay oo Jambuul iyo qaybo kale oo ka mid ah beelahaasi aysan dagaalkaasi qayb ka ahayn. caruurtaasna ay soo qaldeen uguna mahad celiyeen sida wanaagsan ee maxaabiista loola dhaqmay iyo dhaawaca la dabiibayo iyo qaarka meydka ah oo aan lagu xadgudbin shuruudaha meydka uu leeyahay. intaasi ayaa warbixinteena qusaysaa. Gaaljecelna wuxuu aad ku maray jawaabo inuu bixin doono aan hawsha sidaasi ahaan doonin oo ay noqon doonto tii dheereedna ka dhici doonto bahashan ay noqon doonto mid